بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما السبتية oo ay axad soo galayso 7 bisha February sanadka 2026 oo ku beegan 19 bisha Shacbaan sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamid ah إيران oo dignin iyo hanjabaad Mareykanka raaxada uga qaaday iyadoo taliyaha guud ee ciidanka Iiraan mar kale si cad u sheegay jawaab adag inay ka bixin doonaan weerar kasta oo lagu soo qaado xilli xiisadan ay taagan tahay waxa caawa la xaqiijiyay in Netanyahu arbacada Washington uu kula kulmi doono Donald Trump tilaabo loo fasirtay in uu doonayo inuu ku qalqaaliyo Mareykanka duulaan ka dhan ah Iiraan Mareykanka oo hub dunida ka mamnuuc ah in la adeegsado ka iibsanaya Israa'iil haddaba muxuu yahay hubkani warbixin ayaan idinkaga haynaa hogaamiyaha golaha military ee hogaamiye Suudaan oo wacad ku maray inaysan jiri doonin wax wada hadal ah oo lala galo xoogaga RSF oo ciidankiisa dagaal adag kula jira sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay amar la yaab leh oo lagu soo rogay maqaaxiyaha waddankaasi Turkiga haddaba muxuu yahay amarkan sida weyn looga hadalhayo warbaahinta iyo saxaafadda iyo waliba baraha bulshada sheeko cajiib ah iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn hadda ku soo beer waxaad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa Mareykanka waxa lagu yaqiin inuu Israa'iil hubka iibiyo ama ku taageero laakiin hadda isagiiba Israa'iil wuxuu ka doonayaa hub laakiin hubkan waa hub adduunyada ka mamnuuc ah in la adeegsado haddaba aynu eegno warar amuurtan la xiriira iyo saacadihii ugu dambeeyay waxa laga qoray shabakada wararka ee The Intercept ee laga leeyahay Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in waaxda dagaalka ee Mareykanka ee loo yaqaan The Pentagon ay heshiis qarsoodi ah oo qiimihiisu uu gaarayo $210 milyan ay la gashay shirkad hubka farsamaysa oo Israa'iil laga leeyahay si ay ugu farsamayso gantaalo casri ah oo nooca clusterka ama bambaanooyinka firdha ee dunida ka mamnuuc ah in la adeegsado heshiiskan ayaa lagu tilmaamay mid aan caadi ahayn maadaama Mareykanka horey u ahaa dalka hubka u dira Israa'iil balse hadda ka soo iibsanaya warbixintu waxay sheegtay in heshiiskan la saxiixay bishii September ee sanadkii aynu ka soo gudubnay isla markaasna uu yahay iibkii ugu weynaa ee hubka clusterka ama bambaanooyinka firdha ee Mareykanku uu ka helo Israa'iil inkastoo hubkan si weyn loo dhaliilo in la isticmaalo isla markaasna si aan kala sooc lahayn waxyeello ugu geysto dadka rayidka ah heshiiskan ayaa dhigaya in shirkadda Israa'iil laga leeyahay ee Tamar ay muddo 3 sano soo saarto gantaalo cusub oo dhumucdoodu ay tahay 155 milimitir oo lagu magacaabo Hama 12-8 kuwaasi oo lagu bedelayo hub cluster ah oo duqoobay Pentagonka ayaa sheegay in gantaaladan cusub ay leeyihiin heer fashil hooseeya oo ka yar 1% balse khubaradu waxay sheegeen in tijaabooyinka aysan mar walba ka turjumayn xaaladaha dhabta ee dagaalka hay'adaha xuquuqda aadanaha u doodaha iyo khubarada hubka ayaa ka digay qatarta hubkan iyagoo sheegaya in si aan mas'uuliyad lahayn loo adeegsan karo maadaama bambaanooyinka yaryar ee ku jira ay ku fardhi karaan dhul ballaaran qaar badanna aysan qarxin markiiba balse ay noqdaan miinooyin qatar ku ah rayidka muddo dheer warbixintu waxay taasi ku dartay in dadaalka Mareykanka ee lagu horumarinayo hubkan uu la xiriir karo dagaalka Ruushka iyo Ukraine halka dalal ay ku jiraan Mareykanka iyo Israa'iil aysan saxiixin mucaahadooyinka caalamiga ah ee mamnuucaya hubkan bambaanooyinka firdha shirkadda Tamar ayaa la sheegay in iibkeedu uu kordhay muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo heshiiskan Pentagonka uu noqonayo mid ka mid ah kuwii ugu faa'iidada badnaa ee shirkadaasi ay hesho وهجاج برهاتن أينو قارسنا حق أفريقيا يدجالك ودك السودان قدوميها جلها ميلتري هجامية السودان أهنا تريها جود عندما قلب كسيدا جنرال عبد الفتاح البرهان ayaa sheegay in aysan jirin wax nabad ah oo lala gaari karo kuwa dadka laayay dhacay isla markaasna barakiciyay
shacabka Suudaan. Hadalkan ayuu ka jeediyey khudbad uu ka horjeediyey shacabka gobolka Al-Jazeera oo ay ku sugnaayeen dad beeraley ah iyo hogaamiyaasha dariiqooyinka suufiyadda. Al-Burhan ayaa si cad u diiday wax wada hadal ah oo lala galo ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaan RSF, isagoo ku tilmaamay inay mas'uul ka yihiin dilal, dhac iyo barakac. wuxuu sheegay in ku laabashada miiska wada hadalku ay la mid noqon doonto ku celinta dalka masiibadii hore. waxa ugu baaqay dadka la socda RSF oo uu ku tilmaamay kuwa la marin habaabiyey inay hubka dhigaan oo dalkooda iyo dadkooda ku soo laabtaan, isagoo xusay in albaabka cafiska weli uu furan yahay. General Al-Burhan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada qalabka sida ay haystaan taageero buuxda oo shicibka ah, gaar ahaan hogaamiyaasha suufiyadda. wuxuu caddeeyey in ciidamadu ay gaari doonaan meel kasta oo ka mid ah dalka Suudaan, iyadoo dagaalka u dhexeeya ciidankiisa iyo RSF uu socdo tan iyo bishii Abriil 2023. dagaalkaasi ayaa sababay geerida kumanayaal kun oo qof, waxaana la sheegay boqolaal kun oo qof in ay ku barakaceen. qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ayaa ku tilmaamaya colaadan mid ka mid ah falalkii bini'aadantinimo iyo dhibaatooyinka bini'aadantinimo ee ugu darnaa dunida in ay sababeen, kuwaasi oo si weyn u halakeeyey xaaladda waddanka ee Suudaan. haddaba arrimahan waxay ku soo aadayaan xilli maalmihii lasoo dhaafay RSF lagu eedeynay inay fulisay weerar kala duwan, waxaana ka mid ah weerar lala egtay koloyo gaadiid ah oo siday sahay oo hay-adda WFP ay lahayd. sidoo kale wararkayaga maanta waxaa ku jirtay warbixin kale oo sheegaysa in bas marayay gobolka Kordofan la sheegay in gantaal lagu dhuftay ama diyaarad daroon ah, ilaa iyo 24 qof oo caruur ay ka mid tahayna ay ku dhinteen weeraradaasi. Mareykanka ayaa cambaareeyey falalkaasi, gaar ahaan falka lagu weeraray sahayda gargaarka gaadiidkii siday. sidoo kale Sacuudiga ayaa sina caawar ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda, waxaa si adag loogu cambaareeyey RSF iyo ficiladaasi ay wado. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda gobolka bariga dhexe. Iiraan oo Mareykanka hanjabaad iyo digniin raaxada uga qaaday. waxaan kaloo idiin haynaa Netanyahu oo ku sii jeeda Washington. arrintan waxaa la sheegayaa inay qayb ka tahay qorshe uu ku doonay inuu ku qalqaaliyo Donald Trump duula lagu qaado waddankaasi Iiraan. sheekada ugu dambeysay ee barnaamijkan way noo soo socotaay. waliba waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, fahlooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaba HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. iminkana bariga dhexe. xiisadda gobolka bariga dhexe ayaa weli cirka ku shareeran, inkastoo maalintii Jimcaha wufuud ka socota Iiraan iyo Mareykanka si aan toos ahayn oo dadban wada hadallo ay ugu yeesheen magaalada Masqad ee dalkaasi Cumaan. haddana dhiilada colaadeed ee gobolka ka jirta ayaa weli xoogaysanaysa, waxaana tani ay ku soo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ciidamo ku soo daabulayo gobolka. waxaana la sheegayaa in heegan buuxa dhinac kasta uu ku jiro. Iiraan waxaa la sheegayaa in aysan libiqsanayn oo Mareykanka aysan inaba haba yaraatee u dabcayn, mowqif adagna ay qaadatay oo ah dil la soo weeraro in ayaduna ay bixin doonto jawaab adag. waxaana si cad u sheegtay inay beegsan doonto saldhigyada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe ku yaal iyo weliba danaha Mareykanka. haddaba mar kale ayaa caawa digniin waxay ka soo yeertay taliyaha guud ee ciidanka waddankaasi Iiraan. aynu eegno warkan warbaahinta Iiraan, gaar ahaan wakaaladda wararka ee Faris ay soo tuurtay. taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Iiraan General Abdulrahim Mousawi ayaa sheegay in tilaabo kasta oo ka dhan ah Iiraan ay yeelan doonto cawaaqib halis ah. wakaaladda wararka Faris ayaa ka soo xigatay Mousawi oo leh tilaabo kasta oo uu qaado cadowgu waxay ku dhammaan doontaa guuldarro la hubo. waxaa intaasi uu ku daray, shaki kuma jira buu yiri in cadowgu si buuxda uga warqabo in tilaabo kasta oo dagaal oo ka dhan ah Iiraan aysan keliya keenayn guuldarro istiraatiijiya, balse ay ku fidi doonto guud ahaan gobolka. cid kasta oo qorshaysa iyo kuwa taageerana ay la kulmi doonaan khasaare culus oo aan la sixi karin.
taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Iiraan General Abdulrahman Mousawi waxa kale uu yiri ciidanka cirka Iiraan waxay ku jiraan heegankii ugu sarreeyay iyo diyaar garow iyagoo si buuxda oo shaqaynaya ciidamada kale una diyaar ah inay si degdeg ah oo wax ku ool ah uga jawaabaan hanjabaad kasta weerar qalad ku yimaada cadowga uu sameeyo isla markaasna ay si adag uga jawaabayaan cid kasta oo soo weerarta Mousawi wuxuu yiri jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan weligeed dagaal ma bilaabi doonto balse hal daqiiqo kama labayn doonto difaaca amnigeeda qaran ee danaha muhiimka ah iyo midnimada dhulkeeda hadalka Mousawi ayaa yimid maalin kadib wada hadallo lala yeeshay Washington oo ka dhacay magaalada Masqat ee dalka Oman waa wareegii ugu horeeyay ee wada hadal tan iyo markii Mareykanku bishii June weeraro ku qaaday xarumaha muhiimka ee barnaamijka nuclearka ee Iiraan intii lagu jiray dagaalkii 12 maalmood socday ee Israa'iil ay ku qaaday Iiraan wahagaag madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa la sheegayaa weli inuusan qaadan go'aan la xiriira Iiraan in la weeraro maxaa yeelay arrintan waxa yeelan kartaa saameyn aad u culus waa marka koowaad Iiraan oo qaadi karta weeraro ah maxaa ii haray arrinta kale waxa weeyaan cadaadis ka jira gobolka waddamadii khaliijka ee Mareykanka maalgelinta badan ku sameeyay ha noqoto Qatar Sacuudiga Oman Imaaraadka ay iyaguna dagaalkan u arka Iiraan inaysan gacmaha laaban doonin oo ay suurtagal tahay dagaalka intuu faraha ka baxo xaaladdu isbedesho waxa kale laga cabsi qabaa Mareykanka intuu Iiraan ka adkaan waayo inuu isticmaalo hub nuclear taasina saameynteeda ay yeelan karto oo gobolkan isla ololi karo waxa kale arrintan saameynteeda qayb ka ah wadamada Yurub oo qudooda Mareykanka markii hore garab iyo gaashaan u ahaa oo hadda ka biididsan weerarkan oo saameyn ku yeelan kara sicirka shidaalka ee caalamka oo laga cabsi qabo fuustadii $200 inay gaarto laakiin waxaas oo dhan uma muuqda ayaa la leeyahay waa sida qobarada ay sheegayso ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu mar kale ayuu u safrayaa Mareykanka 18 bishan ayaa waxa la sheegayaa in aqalka cad uu kula kulmi doono Donald Trump arrintan waxa leeyahay waa markii ugu dambeysay oo laga wada hadli lahaa arrinta Iiraan waxaana dadka qaarkiis bay leeyihiin waxa dhici karta inuu yiraahdo ma weeraraysaa mise ma weerari doontid markaas waxaa suurtagal ah leeyahay haddii Trump ka adkaysto arrintan gudaha Mareykanka in culays lagaga furo Donald Trump aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amuurtan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa arbacada kula kulmi doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump magaalada Washington sida ay uga wada hadlaan wada hadallada la xiriira Iiraan sida caawa uu shaaciyay xafiiskiisa ayaa war laga soo saaray lagu yiri sidan bayaan ka soo baxay xafiiska ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu aaminsan yahay in wada hadalka lagu soo daro xadidaadda gantaalada balastiga iyo joojinta Iiraan ee taageerada kooxaha wakiiladeeda waxa lagu yeeray wareeg wada hadal oo aan toos ahayn oo u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan ayaa jimcihii ka dhacay Oman waana kuwii ugu horeeyay tan iyo weeraradii Mareykanka iyo Israa'iil oo isgarabsanaya ay ku qaadeen Iiraan bishii June ee la soo dhaafay Washington ayaa doonaysa in Iiraan ay joojiso kobcinta uraniumka xadido barnaamijkeeda gantaalada plastiga isla markaasna ay joojiso taageerada ay siiso kooxaha gobolka laakiin Iiraan ayaa sheegaysa inay diyaar u tahay oo kaliya in laga wada hadlo faylka barnaamijka nuclearka sida uu qoray wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykanka xiisada u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka ayaa cirka isku sii shareeraysa iyadoo madaxweyne Trump marar badan uu ka digay suurtagalnimada weerar military oo Mareykanku uu ku ekeeyo Iiraan waa tahay haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay alaaba waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan leeyahay sheeko la yaab leh oo dalkaasi Turkiga si weyn baraha bulshada iyo warbaahinta u qabsatay waa sheekada ku saabsan maqaayadaha ku yaala waddanka Turkiga ayaa waxa la diidan yahay inay qaataan lacagaha loo yaqaan khidmadda shaqaalaha la siiyo qofka markuu intuu cunteeyo oo loo adeego lacagtii loogu talagalay adeega cuntada markuu bixiyo lacagaha yaryar ee khidmadda shaxaadka loo yaqaan ayaa waxa leeyahay lama ogola in maqaayaduhu ay qaataan ganax baana dhici doonaan haddii arrintaasi ay dhacdo haddaba aynu eegno warbaahinta Turkiga iyo waxa arrintan ay ka qorayso wasaaradda ganacsiga dalka Turkiga ayaa bilowday baaritaan ka dhana maqaayadaha iyo kafeteriyaha kordhinaya qiimahooda si ay si dadban uga qaadaan khidmad adeega macaamiisha kadib markii si rasmi ah loo mamnuucay lacag kasta oo dheeraad ah oo laga qaadayo macaamiisha xeer cusub oo wax ka bedelaya nidaamkan
ayaa waxaa la sheegayaa inuu dhaqan galay kaas oo mamnuucaya in goobaha cuntada lagu qasbo macaamiisha inay bixiyaan lacag dheeraad ah oo loo bixiyey khidmad adeeg miis fadhi ama magac kale si kastaba ha ahaatee maqaayado badan ayaa la sheegayaa in sifo sharci darro ah ay u kordhiyeen qiimaha liiska cuntada si ay u helaan lacag u dhigata qiimadahaasi laga joojiyey arrintaasi oo dood iyo muran dhalisay wasaaradda ayaa sheegtay in tilaabo ay ka qaadi doonto cid kasta oo isku dayda in ay khidmadahaasi adeega ku darto qiimaha liiska lacagaha kiis gaar ah ayaa muujiyey maqaayad kor u qaaday qiimahaasi si ay u daboosho lacagaha shaqaalaha kaasi oo lagu tilmaamay korar aan cadaalad ahayn arrintaasi ayaa waxaa la sheegayaa markaa in ay suurtagal tahay cid kasta oo ku kacda tilaabo in laga qaado inta ayaa caawa kusoo gabagabanaya barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan